xogayaa fulinta dowladda hoose ee degmadaasi Togwa Jale mudane Cabdilaahi Xasan Habane oo ay wehelinayaan agaasimaha waaxda fayadhowrka ee dowladda hoose ee degmadaasi Togwa Jale ayaa maanta si rasmi ah u gubay daawooyin iyo raashin waqtigoodu dhacay oo laga soo ururiyay meheradaha kala duwan ee degmadaasi Togwa Jale. dhinaca kale xogayaa fulinta dowladda hoose ee degmadaasi Togwa Jale oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladiisii. shaqadan maanta la qabtay waa shaqo muddadii anigu shaqada waxaan ku guda jiray muddo bil iyo 13 beri ah sidaa daraadeed waxyaabihii dardargelinta koow halkii shaqadan ka bilowna waxa ahayd fayadhowrka ayuu ahaa. fayadhowrku waa nolosha asaasigeedii waxaan ka bilownay nadaafadda toga iyo kawaanka oo halka xoolaha lagu qalaa in nadaafadeedii iyo dhiigii iyo barkadaha wixii qashin ku jiray laga qaado. agaasinka fayadhowrka waxaan amar ku siinay oo amar ku haystaa in la dardargeliyo oo la joogteeyo habgelin horiyo gelin dambaba fayadhowrka guud waxyaabaha adeega guud ee fayadhowrka dowladda hoose ay u qabato degmada in la dardargeliyo habeen iyo dhalaarna ay agaasinka waaxda fayadhowrka ay heegan u ahaato gaar ahaan alaabta dhacday ee sida naxariistada iyo sida aan sharciga iyo diinta midna waafaqsanayn ay dadka ganacsatada u isticmaalayaan hadday dawo tahay hadday wax la cuno tahay hadday buskuda tahay hadday saliid tahay waxa dhacay ee dadkeenu xalaashadeen inay dadka si khaldan oo ay u hoos keliyaan oo ka iibiyaan inay taa heegan buuxa u ahaadaan waaxda fayadhowrku oo ay habeen iyo maalinba ka shaqeeyaan wixii la arkana la soo qabto. adiga maanta arkayay in iska rogo mugeed aan gubnay oo alaabta nooc walba sharaabkiilo buskudkiilo nooc walba dawooyinkiilo nooc walba isku jirta taasi waan joogteynaynaa habeen iyo maalinba waa laga shaqeynayaa. cidii lagu qabtay ee lagu arkana waxa la isku dari doonaa xarig iyo ganaax si waxa looga tanaasulo ay dadkuna uga waantoobaan. mar labaad dadka waxaan uga digaynaa dadka caadaystay in alaabooyinka dhacay ay iibiyaan xaq allana uma fiicna bini'aadamnimadana uma fiicna lafuhiinana uma fiicna waxaa la iska daayaan leh oo wax xalaal ah oo dadka aan dhibaataynayn oo dhaydkooga iyo wuxuu wax la huba yahay dadka laga iibiyaan leh waxaana hal la joojiyo dadka caadaystayaasha ha joojiyaan baa leh. waaxda fayadhowrkuna habeen iyo maalinba heegan ha u ahaato shaqada ay u hayso bulshada. anigoo isuduweynaha quality controlka ee qaybta fayadhowrka waxaan halkan maantaan ka cadaynaynaa oo aan soo gubnay agab dhacay. agabkaasi oo sidoo agaasimuhu idin sheegayba dhow atam u kala duwanaa atamyadaas oo aanu kasoo kala ururinay magaaladuna run ahaantii ay ina iska keentay ina lagu qabtay. waxaan kaloo aan sheegayaa laba qodob oo aan halkan ka sheegayaa oo muhiim ah aniyo siduun aan aad uga wada hadalnay ka fayadhowr ahaan hay'adda quality controlka uga taala in waxa maadaameynu naalno xuduud u dhaxaysa Ethiopia iyo Somaliland shaabado la leeyahay Boorama ka yimaadeen ayaan aadan uga hadlayaa. shaabadahaasi nimanka Boorama ka yimaada maalinta gacanta lagu dhigo talaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadayaa. taana aan ka wada hadalnay agaasimaha ayjiinta dowladda hoose. takalana alaabtaan maanta gubnay run ahaantii way fara badnayd lowd bay gaadhaysay oo ay ugu badnayd run ahaantii dawooyinka farmasiyada. mar 2016 waa u dhammaaday wixii 2017 ka bilaabmayo war iska soo xareeyay ma leeyahay alaabtaasi. dadkana waxa la ganacsatada ummadda hal ilaaliyo. bishii koobaad 22 waxaan halkan ku gubnay alaabtii dhacday 2016 alaabtaasi oo kala baxda bagaash iyo dawooyin iyo sharaab. marka alaabta magaalada ka soo ururinay ilaa muddo dhowr biloodna waa ku jirnay. ganacsatada waxaanu leenahay ummadda ha samaynina wixii waqtigiisu gaadhuu dhaco sida u dhaqsaha badan leh xafiiska arrimaha bulshada ama fayadhowrka ha loo soo sheego ama ha la keeno. ciddii keeni weydana ganaax ay ka garwaaqsan weydo
ayaa lagu dhifani ee laga helo iyadoo qaayimka iyo malfishka iyo waxa ay u saaran tahay ciddaasi waxay ka hesho cidna ay waxba ka siinin waayo waxa ku cad inay ka ganacsanayaan ummadda ka iibinayaan ummaddu waa ummad iska caama waxa akhriyaa u yaryahay waxa kaloo ay la daba socdaa dayd la bedelay iyo shaabadi iyo waxyaabahaana qarsoodi baa loogu sameeyaa marka ummadda waxaan leenahay ka waantooba waxa soo cidii lagu helo talaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadi anagu markasta heegan baanu nahay waan ku daba jirnaa hadday bakhaar tahay hadday store tahay hadday dukaan tahay dhammaantood hadduu farmasi yahay waan baadhana ciddii aanu ku helana sharcigaa laga maraya ciddii iska soo sheegtana ixtiraamkeega iyo qadarinteeda ayay leedahay markaa sidaa aad imigaba u arkasaan ee idinku muuqato ayaanu kolkaanu ururinaba u gubannaa ciddii waxaasi halka la marinayo shiki kaga jiro ha arkaan oo ha ka shiki baxaan in waxaa la gubayo halkii siduu sharcigu dhigayay loo gubayo lana marinayo markaa imiga markii noogu horreysay maaha waa markii saddexaad eenu sanadkaa 2016 wixii aanu ururinay markii saddexaad aan gubna wey mar laba iska rogaanu gubnay marna iska rogaanu gubnay maantana lowd baanu gubnay wax badanayna wuu hadhanyo waanu ogna marka ciddaa waxaa qarinaysaana ha iska soo dhaweysaan Khadar Cabdi Cabdilaahi warbaahinta madaxa bannaan degmada Togwa Jaale.